jaaliyadda Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa deeq raashin waxa ay soo gaarsiiyeen deegaanka Xero Jaalle. deegaanka Xero Jaalle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Galdogob waxa ku nool qoysas danyar ah. barnaamijka deeqda ah ee jaaliyadda Minnesota ay soo gaarsiiyeen deegaanka Xero Jaalle oo ay u wakiisheen Deeq Cabdullaahi Sheekh Doon ayaa waxa uu ka warramayaa Deeq Cabdullaahi Sheekh Doon deeqdani waxa ay tahay iyo halka ay ka timi. oo ku hadlaya magaca hay'adda Red Horn of Africa waxaan halkan ku qaybinay xoogay yar oo ifdaar ah ama afurina oo dadka masaakiinta ah oo deegaanka Xero Jaalle loogu talagalay. waxaan halkan ku siinay dad gaaraya 40 qoys oo qofkiiba lacagta ku hagaagtay adigu lacag 40 ilaa 50 inta u dhaxaysa markii la isku qiyaaso. dadkaas oo dad aad u danyara ah halkan waxaan uga mahadcelinaynaa jaaliyadda Mareykanka gaar ahaan Minneapolis. sidoo kale dadka deegaanka Xero Jaalle ku dhaqan iyo maamulka Xero Jaalle ayaa waxay ka warramayaan sida ay ugu qanacsan yihiin una soo dhaweynayaan deeqdan raashinka ah oo ay uga mahadcelinayaan jaaliyadda Minnesota. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacayga Cabdirasaaq Gaciye Jacdhey weeye, gudoomiyaha Xero Jaalle weeye. aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa Ilaahay inoo keenay xogaaga yarka raashinka dadka masaakiinta u keenay. 40 qoys baa ka faa'iideystay. aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkii soo sadaqaystay ee jaaliyadda Mareykanka ee Minneapolis. waxaanu leenahay meesha aad ka soo bixiseen wax ka khayr badan Ilaahay ugu bedelo adduunyo aakhirana. Ilaahay waxaanu leenahay kulli baana jidka siraaqaad uga boodaan Allah idinkaga dhigo. dadkuna dad rahiim anigoo taana xalay guuleed oo jooga Xero Jaalle waxaan hadda ka haynaa oo ka faa'iideysanaynaa anigoo xuriyaan ah walaalaha iyo deeqdii ay noo soo dhiibeen Xero Jaalle ay u soo dhiibeen ayaanu hadda qaadanaynaa. afurinta ahayd oo maalinka baabal khayrka oo Ramadaanka ayaanu qaadanaynaa haddana gacanta ayaan ku haynaa. magacayga waxaa la yiraahdaa Nadiifo Maxamed Shabeel. waxaan ay dadkii ka faa'iideystay muxuu ahaadeen waxaan ugu mahadcelinayaa hay'addii noo keentay in balosama Red Horn Africa waa u mahadcelinaynaa. halkan waxaan wax ku qaadanay 40 qof oo reer Xero Jaalle ah oo danyar ah oo bisha Ramadaan muxuu ahaadeen afur u noqonaysa hadii Ilaahay idan ka dhigo Ilaahay idmo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa ayagana sadaqa jaariya Allah Ilaahay inuu uga dhigo annagana dhacaan shifar Allah inuu nooga dhigo. waxaan idinkugu mahadcelinaynaa leen walaalaha ayagii noo soo dhiibay waad mahadsantii. hay'adda Horn of Africa ayaa barnaamijkan oo kale waxay ka soo sameysay deegaanada Bursaalah, Gaalkacyo iyo Riigoomane sida uu sheegayo Deeq Cabdullaahi Sheekh Doon. hay'adda Red Horn of Africa waxay ka soo shaqeysay deegaanada Bursaalah waxay ka soo qaybisay 40 qoys oo kale Gaalkacyo sidoo kale. Iimaan Maxamed Gaani, Puntland TV, Galdogob.